رسول الله أنا جوا إنجنير حسين محمد عمر ورنا وقت السنة شغالان دولي كهوسة إما كنا كم بده رقدم عليه قولهن وكيل هذا waxaan doonayaa inaan qodobo yaryar oo muhiim ah ka hadlo oo wacyigelinta diiwaangelinta quseeya qodobka koowaad oo midna ka mid ah wacyigelinta diiwaangelinta waxaan doonayaa inaan u sheego dhammaan asxaabta ama dadka gobolkan Hargeysa doonaya inay ka codeeyaan oo kale inay aanay u muhiim ahayn inay tagaan meeshii midlan ay amar kaba soo jeedeen hadii ay Hargeysa ku dhasheen halkooda ka qaataan si qofka ay doonayaan ay soo saareen codkiisa halkan ay uga soo saaraan waayo waxa lagu xisaabtamayaa goboleysi adduunyadu waa way dhaaftay moogursi qabiileysiga loo odhan jiray maanta ninku gobolka burco u dhashay ama Ceergaabo u dhashay Boorama maanta ku nool ee ku dhashay inuu Boorama u dagaalamo oo gobolka soo saaro xildhibaan Boorama u dhashay laga rabaa aan la oranin reerka iyaga ahayda kale halka qabo taasi waa qodob oo dadka waxaan doonayaa aan ku boorinayaa ama aan ku dhiirigelinayaa inay u diyaar garoobaan xilligii diiwaangelinta gobolkan Hargeysa oo waqti yar oo kooban inaga xigo si ay u soo saaraan awoodda ay leeyihiin gobolkan Hargeysa gaar ahaan دول عضينا عد عدكي هدي ميركل ويسكدي ونقولي هالكل نقول عضين كراعد بدل الله بعد واحد كلا أوجرته ضد اللي يراه و أما حسابها هذا المشرحين قول لك كصعداء هذا أنا مقالة درجيسة كجرين كوا سواء اللي يراد كوي هروسدين ama ay ku kacayseen inay badda ku soo dabashaan in lacag la siin doono in waxyaabo aynkaas tiina ay keentay inay khasaare u dhaco meelaha qaar kood waxa jirta basas loo qalibay oo caruur badan wax ku noqotay iyagoo aan dadkii dhalay mas'uulka ahana aanay wax warakaynin loo keenay iyagoo dhaawacahum caruurtii iyagoo dhaawacun baa loo keenay taas waxaan anigu uga degi lahaa dadka musharaxiinta gobolada kale wax u guraya inay khasaaraha noocaas ka digtoonaadaan oo aanay meel laba caruurta u gurin waxa kale oo jirta imika xaalad aad u adag nasiib darro waxa isku soo hagaagay arintii diiwaangelinta iyo xaalad aad u adag oo taabaaraha dalka caam ku noqotay ee wada saameysay ha ugu sii daraato beelaha midlan gobolka oo awda loo kale iyo selmiya sayla ugu sii daraadaan laakiin dalka caam ahaan way wada haysaa waxa kaloon ku boorin lahaa anigu axsaabtan maanta qarashka badan ku bixinaysa kormeerada iyo hawlaha inay cadeeyaan ololahooda ku cadeeyaan dadkii ay ka doonayeen codka maanta aad bay u leenayaan in hawsha maadaama ay xilligaa isku soo hagaagtay hawsha ay ku ololeynayaan inay dadka ay codka ka doonayaan wax ku taraan oo ay wixii ay ku taray karayaan ama raashinaha ahaato ama diibidkiisleey biyaha ahaato ama xoolahoodii oo iyaguna xoolahaata waa way madheenba maanta naf bay maraysaa dad baa dhintay waxaan oran lahaa anigu tala ahaan axsaabta maanta ololeynaysa ama mucaarada ahaado maxamed maxaafid ahaade lacagta ay ku ololeeyeen qarashkaasi inuu ku baxo dadka ay codka ka doonayaan